Somalidu kadeen aragtay ka baxday kuftay kacday jabtay oo kabatay Somalidu kadeen aragtay ka baxday kuftay kacday jabtay oo kabatay maantana waxaan idin haynaa mas'uul mudan madaxweynaha Jubbaland dadka ka marqaatiya waa musharax madaxweyne maamulka Jubbaland Dr. Maxamed Yuusuf Aw Daahir oo ku magac dheer Marsheeye dadka magaca guud iyo muuqa waa ka siman yahay Marsheeye muxuu yahay muxuu qabtay isaga ayaa inoo marinayay maqalka mar u naamaahiya sidaad sheegtay anigu magacayga waa Maxamed Yuusuf Aw Daahir waxaan ku dhashay magaalada Bu'aale anigoo laba jir ah waxaan u wareegnay degmada Baardheere dugsiga hoose dhexe waxaan kaga soo baxay degmada Baardheere kadib dugsigii sare ee beeraha oo national school ahaa oo school qaran ahaa ee magaalada Jowhar ayaa horaantii 8 aan galay dugsiga sare markaan dhameeyay 2 sano oo shaqadii qaranka ah oo national service abaan maray oo qaybo kala duwan ee dalkan ka shaqeeyay kadib jaamacadda ummadda Soomaaliyeed baa 87 bilowgeedii aan galay jaamacadda markaan ka qalin jabay 9 intaan ka qalin jabinin wasaaradda beeraha anigoo jaamacadda ku jiro ayaan ka shaqeynayay oo waxaan ahaa research assistant beertii tijaabada afgooye dalagyada beeraha lagu tijaabinayay aan ka shaqeynayay iskuulka beeraha ee magaalada afgooye ku yaalay la falaateedana macallin baan ka ahaa oo volunteer teacher kadib halaaga markuu dalkeena ka dhacay uu burburay xagga iyo Kenya u qaxay 93 baan hadana dib ugu noqday gobolada Jubbooyinka oo aan ka shaqeynayay hay'adaha kala duwan ee caalamiga iyo kuwa maxalliga ah kadib 96 ayaa waxaan aaday wadanka Uganda jaamacadda Makerere University baa waxaan ka sameeyay master oo dhaqaalaha beeraha ama agriculture economics kadib waxaan u shaqeeyay hay'adda FAO Soomaaliya dhexdeeda muddo ka shaqeeyay dhammaan gobolada dalka waqooyiga gobolada dhexe koonfurta meel aanan tegin dalka ma jiro oo waayadii marxaladda adag dalka uu ku jiray min dadka ka dhex shaqeeyo oo ummadda ku dhex nool baan ahaa habiilba kala geeyay inka saarila wakan nabadori wakan isku kale wakan habiilba kala geeyay inka saarila wakan nabadori wakan isku kale wakan kullayba khayr baan rajaynaynaa ummaddu inay midowdo dalkuna uu sidiisa ku soo laabto laakiin anigu shakhsiyan faa'iidada ugu badan ee laga heli karo ee aaminsanahay waa service delivery oo qolo walba deegaankooda ay service qabtaan ummadii ay nabadii kala shaqeeyaan ay howlihii gaarsiiyaan waxyaabihii xamar loo tegi jiray shaqadii dadka loo dhaweeyo inaha qudhigooda waa wax loo baahan yahay oo muhiim ah baan u arkaa Hadi Elohia, Hadi Elohia.